wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ay wehelinayaan gudoomiyaha gobolka Soor Cabdi Khayr Dirir ayaa maanta socdaal ku maray deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka Sool. Socdaalkan wasiirka iyo wafdigiisu ay ku gaadheen magaalooyinka ay ka mid yihiin Dhumay, Dabataag iyo Saaxdheer oo ahaa deegaanadii ay sida weyn u saameysay colaadda iyo abaartu ayaa ujeedka socdaalkani u daaranaa taabagelinta nabadda iyo hubinta sidii ay u hirgashay nabadii la dhex dhigay labada beelood ee walaalaha ah ee dhawaan colaaddu ku dhex martay deegaanadaasi. sidoo kale waxa uu wasiirku gaarsiiyay deegaanadaasi hay'ado wada deeq raashina oo loogu talagalay dadkii ay abaartu saameysay. qoysas gaaraya 1700 qoys oo ka mid ah dadkii ay abaartu saameysay. gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir ayaa faahfaahin ka bixiyay. waxaan joognaa magaalada Dabataag halkan saad aragtaa waxa ku sugan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iyo madaxda hay'adda ARC Kuwait xafiiskeeda Hargeysa. waxaan soo gaarsiiyeen deeq raashina oo ka kooban 5 item bariis, sonkor, daqiiq, saliid iyo timir oo cadadkeedu dhan yahay 700 qoys. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa haddana maamulka gobolka Sool deeqda ugu deeqay dadka masaakiinta ah. si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasiirka arrimaha gudaha ciidamada qalabka sida barasaabka anagoo ka jawaabayna baaqi dawladda Soomaaliland inoo soo gudbisay ee ahaa ina dadka waxa weeyaan intay gacan tolnimo ku kala dhacday dhaxdoodana col ka dhacay dib dawladdu ha u soo walaalaysay oo isku keentay dadkaas oo xoolii ka dhamaadeen abaartii ka dhamaysay roobkii markuu da'ayna hana helin waxa weeyaan wax gargaara. sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka hadlay ujeedka socdaalkooda. waxaan joognaa magaalada la yiraahdo Dabataag oo ku taala koonfurta gobolka Sool. magaaladaas oo ah deegaanadii ay colaaduhu labada beelood dhex maray ay ka dhaceen muddo badan lagu kala maqnaa oo maxay burbur badan iyo barakac badan uu ka dhashay. halkaas aanu joognaa waxaanu hay'ado islaami ah oo macaawino bixinaya gargaar fidinaya ayaanu meeshan keenay. sababta ugu weyn aanu imi waxa weeyaan ballanqaadadii markii aanu nabadeynta halka ka sameynay aanu ballanqaaday dadka in haddii ay nabadu adkeeyaan oo ku fara adeegaan oo nabadii aanu ku dhexdhexaadinay aanu dhamaynay ay hirgeliyaan in ay u furmi doonto deegaankan mucaawanadu oo dadku u imaan doono hadday tahay mid dawladdu u keento iyo haddii ay tahay hay'adaha caalamiga ah iyo dawladuhu inay u yimaadaan. taas ballanqaadka aanu u samaynay si aanu u muujino ayaanu halka kan hay'ado aan qaarkood ku soo dhiiradeen halka kan ee nagu kaliftay inaanu soo kaxayno oo halka keenno iyagana u cadayno in ballanqaadkii dawladdu ay u samaysay uu dhab yahay oo ay kaga dhabaynayso. 4 deegaan oo meelihii wax ka dhaceen ah ee colaaduhu ka dhaceen ee burburka iyo barakacu ka dhacay ayaa raashin la geynayaa oo ay ka mid yihiin Dabataag iyo Dhumay, Dharkayngeeyo iyo Saaxdheer ayaa raashin la geynayaa oo 2 hay'adood oo mid tahay ARC Kuwait oo Islamic Sunna la yiraaho iyo hay'ad kale oo ay wada shaqeeyaan ayaanu 4 deegaan inay raashin geeyaan oo macaawino gargaar geeyaan aanu u soo raacnay. alxamdulillah dadkii ballan way kaga dhabeeyeen nabadii ay ballan qaadeen inay adkeynayaan ilaa iminka waa la ogyahay wax dambe oo dhacda oo mataqaana ama colaada ama dadka dhibaato u geysa kama dhicin. deegaanadoo dhan waa wada degan yihiin waana waxaad moodaa inay ama waxay u muuqataa inay nabadii dhaboobayso. aad ugu mahadnaqaynaa hay'adaha maxay ahayto raashinada keenay iyo gargaarka kan ARC iyo Islamic Sunna. waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa ciidamada qaranka halkan uga mahadnaqayaa wasiirada kale ee hawsha tan qaybta weyn ka qaatay wasiirka awqaafta wasiir dawladda madaxtooyada iyo wasiirro kale oo arrimaha nala riixayba waxaanu iyana u mahadnaqaynaa hay'ado badan
oo islaamiya oo ka soo qayb qaatay arrinta tan. Mawlid Ali, Star TV, deegaanka Saaxil ee gobolka Sool.